dhammaantiin badhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxa aad ku soo dhawaataan warka subaxnimada warbaahinta qaran ee muqdisho qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey weerar khasaare dhaliyo ka dhacay degmada maxaasi ee gobolka hiiraan weerar dad shacab ah lagu dilo oo ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyo faahfaahinno ka soo baxaya maamulka puntland oo shararka siyaasadeed ka mamnuucay magaalada boosaaso ee gobolka bari madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan sagootina la qaatay safiirka itoobiya ee madaxeedkiisu idlaaday akhbaraadka dibaddana waxa aad ku maqli doontaan ruushka oo sheegay inuu duqeyn ku dilay 130 ruuxa radio qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com wanaagsan dhegeystayaal waxaad dhegeysateen qodobadii warka oo kooban iminkana waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad dhegeysateen oo intii hore ka faahfaahsan aynu ku bilownay faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay qaraxyo ismiidaamin oo saaka roortii ka dhacay degmada maxaasi ee gobolka hiiraan sidoo faahfaahinta kusoo jeedinaya wariyaha eegaykaase faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya laba qarax oo ismiidaamin ahaa oo ka dhacay degmada maxaasi ee gobolka hiiraan kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray askar iyo dad shacab qaraxa koowaad ayaa lagu weeraray afarta hore ee guriga gudoomiyaha maxaad waxaana qaraxaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaar ka mid ah askarta ilaalada guriga iyo dad shacab ah qaraxa labaad ayaa lagu weeraray guri uu degnaa xildhibaan jacfar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka balse la sheegay inuu ku maqnaa muqdisho wararka aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa ku dhinteen 10 ruux oo isku qoys ah oo ka koobnaa qaar ka mid ah askartii guriga lagu weeraray qaraxa gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane ayaa sheegay in gawaarida qaraxyada siday ay ka yimaadeen dhinaca deegaanka wabxa waxaana xusid mudan in ciidamada qaraxyadaasi lagu weeraray ay ahaayeen kuwii hore u qabsaday deegaanka wabxa aad buu mahadsan yahay wariyaha eegaalka xasoo faahfaahintaasi soo jeedinayo wixii wararka kusoo korana dhegeystayaal wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad markaasi kula socon doontaan haddii uu eebba idmo dhinaca kale maleeshiyaad hubaysan ayaa waxa ay rasaas ku fureen dad fadhiyay goob ganacsi oo ku taalla waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaas oo markaas uu ka arimiyo maamulka puntland intaa la xaqiijiyey weerarka waxaa ku dhintay 2 ruux halka 3 kale ay ku dhaawacmeen dadkaasoo la sheegay in dhammaantooda ahaayeen dhallinyaro ehel ah goobjoogayaal ayaa sheegay in falkan uu salka ku haya arrimo ku saabsan dilal aanooyin qabiil ah oo ka dhacay gobolka mudug islamarkaana maleeshiyaadkii weerarkay geysta ay goobta ka baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska puntland ayaa tegay goobta weerarku ka dhacay iyagoo halkaasi ka qaaday dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in gacanta ay ku soo dhigi doonaan dadkii weerarkaasi geystay deegaano iyo degmooyin markaasi ka kala tirsan amaba ka tirsan gobolka mudug dhinaca maamulka puntland iyo sidoo kale dhinaca galmudug ayaa waxaa ka dhaca dagaal beeleedyo iyo dilal aanooyin qabiil ah iyada oo markaasi ay ku guuldaraystaan ciidamada ammaanku inay markaasi soo qabtaan dadka falalkaasi geystaa gudoomiyaha gobolka bari ee maamulka puntland waxa uu markaasi ku soo rogay amar hoteelada magaaladaasi boosaaso kaasoo ah in lagu qaban karin shirarka siyaasadeed haddii aan la ogeysiin maamulka qoraal uu soo saaray gudoomiyaha ayaa waxa uu ku sheegay in si loo adkeeyo amniga muddo kooban la joojiyey shirarka iyo xafladaha siyaasadeed lana qaban karin iyadoo aan fasax laga haysan guddiga markaasi nabadgelyada gobolka bari sidoo kale waxaa la faray milkiilayaasha hoteelada in markaasi ka hor 24 saacadood ay soo weydiistaan maamulka haddii la qabanayo shirar waxaana markaasi tallaabadan aad uga carooday ururada siyaasadda puntland gaar ahaan kuwa diidan in diiwaangelin
hal dhinac ah laga qabto markaasi puntland. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu kulan sagootina kula qaatay madaxtooyada qaranka danjiraha etoobiya ee u fadhiyey dalka cabdifataax cabdulaahi xasan oo u dhammaaday madaxleedkiisii diblomaasiyadeed ee uu ku joogay soomaaliya. madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey danjiraha cabdifataax doorka uu ka qaatay xiriirka iskaashiga labada dal waxa uuna u rajeeyey mustaqbal wanaagsan. dhankiisa danjiraha cabdifataax cabdulaahi oo madaxweynaha uga mahad celiyey kulankan ayaa tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay wada shaqaynta ay markaasi muujiyeen dowladda iyo shacabka soomaaliyeed intii uu markaasi ku guda jiray ee gudashada waajibaadkiisa diblomaasiyadeed ee loo soo igmaday. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay markaasi sida ay uga go-an tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed inay xoojiyaan xiriirkii iskaashiga diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin dadka caalamka gaar ahaan dalalka gobolka si danaha dadka soomaaliyeed loo gaaro iskaashi iyo markaasi wax wada qabsi dalalka kale ee caalamka. halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal oo warbaahinta qaran ee magaalada muqdisho qodobadii gudaha ayaad dhegeysateen. akhbaraadka dibadda qodobka ugu doorka roon haddii aynu eegno, afhayeenka wasaaradda difaaca ee ruushiya oo ka hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ay burburiyeen 2 madaafiicda goobta ee nooca lagu farsameeyey maraykanka, kuwaasi oo markaasi qayb ka ah gantaalada loogu deeqay ciidamada Ukraine. waxa uu tilmaamay in duqeymaha lagu burburiyey gantaaladaasi oo yaalla meel u dhow gobolka Donetsk ee bariga dalkaasi Ukraine. ciidanka ruushiya waxa ay kala howlgalkaas ku burburiyeen 3 madaafiicda markaasi loo yaqaano M777 ee dalka maraykanka lagu farsameeyo. dhinaca kale afhayeenka wasaaradda difaaca ee ruushiya waxaa kale oo uu xusay inay in ka badan 130 caloosho shaqaystayaal shisheeyaha lagu dilay muqaymo ay qaadeen ciidamada cirka oo lagu beegsaday goobo cayiman. caloosho shaqaystayaashan ayaa markaasi la sheegay in lagu dilay meel u dhow deegaanka ee lagu magacaabo Maslikovka oo u dhow magaalada ee ku taala gobolka Donetsk ee xuduudda. duqeymahaasi ayaa yimid hal maalin kadib markii militariga Ukraine ay duqeymo gantaalaha ku dileen Iran 63 askari Ruushiyaan ah oo markaasi ku sugnaa meel u dhow magaalada Makiivka ee gobolka Donetsk oo ay Ruushia qaybo badan ka maamusho. warkii subaxnimo aad kala socoteen warbaahinta qaran ee magaalada muqdisho dhegeystayaal waa inaga intaa. radio qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaran